ودقال يسكو أديكسانيو نوعيدا كلا دوان هوبكا oo saakay ka qarxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladani ugu yaraan 17 qof oo tahriibayaal ah oo ku geeriyooday masiibo kale oo ka dhacday badda u dhaxaysa waqooyiga Afrika iyo waddanka Spain madaxweynaha Mareykanka oo si ay ka muuqato jahwareer uu ku jahwareersan yahay Iiraan saacada gudahood uga hadlay arrinta la xiriirta Mareyka Hormuz Iiraan oo si cad u sheegtay in hanjabaadaha ka imaanaya Mareykanka ay dib u dhigeen heshiis laga gaaro furitaanka marinkaasi Israa'iil oo sheegaysa inaysan waxba kala socon sida ay u socdaan wadahadallada Trump uu kula jiro Iiraan xiisad cusub oo dhanka diblomaasiyadda ayaa ka dhex coratay Brazil iyo Mareykanka dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargiis ma doonaysaa barashada quraanka kariimka iyo culumta diiniga fursadda waxaa ka helaysaa akaadamiyada waxbarashada diiniga ee Diini Academy akademiyadu waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo kala ah qaybta barashada higaada carabiga akhris iyo qoraalba muddo kooban qaybta quraanka kariimka maca tajwiid qaybta culumta shariicada sida xadiiska siirada fiqiga luqadda carabiga iyo qaybaha kale ee diinta oo hab online ah lagu baranayo dugsigu waxa uu qaadanayaa arday cusub caruur iyo dad waaweynba waxaana uu furan yahay 24 saac 7 maalmoodba wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka dini-academy.com balanteenu waa Dini Academy ku haya xanuunka goonjabku oo ku xanuunaya madaxa sidoo kale margeeda xanuun ma ka dareemaysa saliidan janaat magaran oil waxay ka daweynaysaa dhibaatooyinka xanuunka ee aad kaniinka badan u isticmaali lahayd waxaad ku shubaysaa gacmahaaga waxaadna marinaysaa madaxaaga iyo margiyadaada waad ka helaysaa Afrika Aasiya iyo Ameerika si guud sidoo kale waxaad ka helaysaa dukaamadeena ku yaala magaalooyinka Nairobi Garowe Hargeysa iyo Muqdisho sidoo kale waxaad ka dalban kartaa online-ka Amazon wixii dheeraad oo faahfaahin waxaad ka helaysaa lambarada iyo ciwaanada hooska soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waanu imaan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda magaalada Gaalkacyo laakiin saaka waxaynu ku hormaraynaa masiibo kale oo ay ku lug leeyihiin tahriibayaal Afrikaan ah oo ka dhacday xeebaha u dhaxeeya waqooyiga Afrika iyo waddanka Spain ugu yaraan 17 muhaajiriin ah ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen isku day ay ku doonayeen inay ku gaaraan jasiiradda Balearic ee dalka Spain kadib markii doontii ay saarnaayeen ay ku xanibatay badda muddo 15 maalmood ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta waddanka Spain 2 qof oo kaliya ayaa laga badbaadiyay doonta kuwaasi oo laga helay meel qiyaastii 13 mayl badeed u jirta koonfurta galbeed ee jasiiradda Mallorca 2 qof ee la soo badbaadiyay oo ka soo kala jeeda 2 dal oo dhaca waqooyiga Afrika ayaa la dhigay cisbitaal iyagoo la ildaran fuuqbax iyo nafaqa darro waxay sheegeen in doonta markii hore ay saarnaayeen 19 qof inkastoo maamulka Spain uu sheegay inuusan weli si madax bannaan u xaqiijin karin dhimashada dadka kale dhacdo kale isla talaadadii shalay ka dhacday xeebaha Mallorca ciidamada gurmadka ayaa badbaadiyay 17 muhaajiriin halka 2 meyd ah laga soo saaray doon kale oo la rumaysan yahay inay siday ku dhawaad 30 tahriibayaal hawlgallada baadigoobka dadka la la'yahay ayaa weli soconaya war kale oo arrimahan la xiriira dowladda waddanka Spain ayaa sheegtay in 10,000 oo muhaajiriin
ay si qaanuunka ka baxsan u galeen magaalada Ceuta tan iyo bilowgii mawjadda socdaalka ee soo bilaabatay 30kii bishii Juulaay ee sanadkan. Dowladda Spain waxay sheegtay in ay dib ugu celisay inta badan dadkaasi dalka Morocco iyadoo dhimashada la xiriirta isku dayada tahriibka ay kor u dhaaftay 77 qof maalmihii la soo dhaafay oo kaliya. Muhaajiriinta weli ku sugan Ceuta ayaa wajahaya xaalado bini'aadantinimo oo adaga oo ay ka mid yihiin hoy la'aan, cunto yari, biyo nadiif ah oo xadidan iyo adeegyada nadaafadda oo ah kuwa aan hagaagsanayn. waa hagaag warkaasna intaa aynu kaga gudubno. markan waxaynu eegaynaa xiisad cusub oo dhanka diblomaasiyadda ah oo ka dhex curatay Brazil iyo Mareykanka. maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kala noqday fiisihii ama dalkugalka safiirka Brazil u fadhiya Washington Maria Luisa Ribeira iyadoo tilaabadan ay jawaab u tahay go'aankii Brazil ee bishii hore fiisaha ay ugu diiday 2 diblomaasi oo Mareykan ah. sarkaal ka tirsan waaxda amuuraha dibadda ee Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay in go'aankan uusan ka macno ahayn in safiirka laga eriyay dalka balse uu yahay tilaabo diblomaasiyadeed oo lagu cadaadinayo dowladda Brazil. waxaana taasi ku daray in fiisaha dib loogu celin karo safiirka Brazil haddii Brazil ay aqbasho safiirka cusub ee Mareykanku u magacaabay waddankaasi Daniel Perez oo weli aan xilka la wareegin. waaxda amuuraha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in tilaabadani ay tahay mid looga jawaabayo diidmada Brazil ee fiisaha loo diiday 2 mas'uul oo Mareykan ah. sida ay saraakiishu sheegeen, go'aanka ayaa dhowr jeer dib loo dhigay si fursad loo siiyo dowladda Brazil inay beddesho mowqifkeeda, balse taasi ma aysan dhicin. Brazil ayaa horey u sheegtay inay diiday codsiga fiisaha sabab la xiriira walaac laga qabo in booqashada saraakiisha Mareykanka loo adeegsado dana siyaasadeed iyadoo doorashada madaxtinimada ee dalka ay ka harsan tahay wax ka yar 3 bilood. saraakiisha Mareykanka ayaa qorsheynayay inay magaalada Brasilia kula kulmaan mas'uuliyiin dowladeed iyo kuwa doorashooyinka si ay uga wada hadlaan wax loogu yeeray hufnaanta doorashooyinka, xorriyadda diinta iyo xorriyadda hadalka. xiisadan diblomaasiyadda ayaa ku soo beegmaysa iyadoo muran cusub uu ka taagan yahay amniga codbixinta elektaroonikada ee Brazil, arrin mar kale ay soo hadal qaadeen siyaasiyiinta mucaaradka. waa hagaag wararkaasna intaa aynu kaga gudubno. markan waxaynu eegaynaa dhanka gaalkacyo, halkaasi oo colaad cusub maanta ay ka qaraxday. wararkii ugu dambeeyey haddii aynu eegno iyo xaaladdu sida imika ay tahay, wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal la isku adeegsanayo noocyada kala duwan ee hubka saakay uu ka qarxay dhanka waqooyiga bari ee magaalada. goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalka u dhexeeyo ciidamada maamulka Puntland iyo ciidamada gaarka ah ee BSF oo dhawaan sheegay in ay ka amar qaadanayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. ilo wareed dhanka caafimaadka ayaa sheegay in waxyeello ka dhalatay dagaalka ay soo gaartay dad rayid ah oo ku sugnaa gudaha magaalada, iyadoo ay haleeleen hoobiyaal iyo rasaasta la iswidaarsanayo. waxaana la xaqiijin ilaa hadda qasaaraha inta uu dhan yahay, waxaana wararku sheegayaan in dhowr guri ay ku dhaceen hoobiyaal. maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada ka taagneed xiisad colaadeed kadib markii ciidamo taabacsan maamulka Puntland lagu soo kordhiyey ciidamadii horey ugu sugnaa magaalada, iyadoo la sheegayo in ay guul daraysteen wada xaajood dhinacyada lagu kala dab qaadayay si dagaal looga baaqsado. ma jira wax war ah oo ku aadan dagaalkan oo ka soo baxay dhinacyada dagaalamaya. muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dab iyo uura ka baxaya goob la aaminsan yahay inay ku dhowdahay halka ay ku sugan yihiin ciidamada BSF. xeradaasi oo la sheegayo in madaafiic hoobiyaal ah ay ku dhaceen sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan. waa hagaag warkaasna wixii ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo.
waxaan u gudbaynaa gordhow wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha colaadeed ee ka aloosan gobolka bariga dhexe madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saacada gudahood wuxuu jeediyey 3 war oo midka kale uu ka soo horjeedo wararkaas iyo warar hadda soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiina qari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka quraanka kariimka higaada iyo asaasiyaadka diinta islaamka iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qari online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharada qari online la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda Imara Luxury Homes daldalaal la iskama raace kuwani waa dhismayaasha Imara ee dhaxalgalka dhismayaasha Imara waxay ka kooban yihiin 2 qol 3 qol 4 qol iyo fadhiyadooda guryo duplex iyo kuwa penthouses qolka shaqaaluhuna meesha kama maqna iyo wax kasta oo ay xaafad gaar ah u baahnay labada dhisme ay shirkadu hadda gacanta ku hayso dhismaha koowaad waxa laga dhisayaa xaafadda Backland City Park Drive 6th Avenue waxaana uu ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu ku yaalaa Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Danisbury Road wixii faahfaahin ah oo inta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan arbacada toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter iyo Telegram warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag intaan u gudbin wararka bariga dhexe aynu dib ugu laabano wararka la xiriira dagaalka ka socda magaalada Gaalkacyo waxa imika soo baxaya war sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku geeriyooday 7 kale oo ciidamo ay kamid yihiin dhaawacyada la dhigay cisbitaalka ku yaala magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhanka waqooyi warkan waa wararkii ugu dambeeyay ee qasaaraha ka dhashay dagaalka wixii ku soo kordha dagaalkan iyo wararka ugu dambeeyana waan idin soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala waa tahay xagga bariga dhexe aynu eegno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu jeediyay saacada gudahood ama hal waraysi intii uu ku jiray dhowr war oo kala duwan midba mid kale waa ka hor imaanaya arrintan qobarada Mareykanka waxay ku macnaynayaan jahawareer madaxweynaha Mareykanka ka haysta arrinta Iiraan isla markaasna tabar iyo taag uu u laayahay dagaalka inuu kaga guuleysto xeelad iyo tabna uu u laayahay in heshiis la gaaro xaaladdu waa jiq haddaba aynu eegno wararkan iskhilaafsan ee ka soo yeeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee la xiriira xaaladan imika ka taagan waddankaasi ee Mareykanka madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku andacooday in Iiraan ay wajihi doonto weerar aad u culus haddii ay ku guuldareysato in heshiis ay gaarto isla markaasna marin biyoodka Hormuz oo sii xirnaado waraysi uu siiyay telefishinka Fox News ee laga leeyahay Mareykanka ayaa Trump waxa uu ku sheegay in Iiraan weligeed aysan yeelan doonin hub nuclear ah isla markaasna horay aysan u haysan arrinkaasina wuxuu sheegay in si adag loo xaqiijin doono waxa sidoo kale uu sheegay in marin biyoodka Hormuz si dhakhso ah loo furo haddii kale wuxuu yiri Iiraan waxa lagu qaadi doonaa weerar aad u culus ugu dambeyntiina marin biyoodka si xoog ah ayaa lagu furi doonaa waa si hadalka uu yiri Trump ayaa waxa intaasi ku daray in Mareykanku uu qorsheynayay weerarkii ugu weynaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka balse wuxuu sheegay in mas'uuliyiin Iiraaniyiin ay la soo xiriireen waa si hadalka u dhigaya iyagoo codsanaya in wada hadal lala furo wuxuuna yiri waxay si adab leh yiraahdeen fadlan ma wada hadli karnaa anugana waxaan ku iri ha aan wada hadalno aan ugu dambeyn arrintan soo afjarno madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu ka digay in haddii Iiraan ay mar kale ka baxdo wada hadallada ay la kulmi doonto weerar aad u xooggan wuxuu yiri way og yihiin arrintaas wayna fahamsan yihiin waaye hadalkaas waa hadalka koowaad
hadalka saddexaad oo noo soo socday hadalka labaad aynu eegin oo ujeediyey madaxweynaha Mareykanka waa hagaag madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in Washington iyo Tehran ay wadaan wadahadallo aad u wanaagsan inkastoo mas'uuliyiinta Iran marar badan ay beeniyeen jiritaanka wadaxaajoodyada waraysiga uu siiyey Fox News ayaa waxa uu ku yiri waxaan wadanaa wadahadallo aad u wanaagsan iyagoo ma jecla inay qirtaan arrintaasi balse waa sida ay tahay waxa intaasi oo ku daray in wax ugu muhiimsan ay tahay ficil in la sameeyo isagoo yiri waxa kaliya muhiimka waa tilaabada la qaado waxay doonayaan inay heshiis gaaraan waan arki doonaa waxa dhaca haddii aysan heshiis gaarin waxay noqon doontaa arrintu mid aad u xun waaye warka koowaad muxuu ahaa hanjabaad iyo hormuus xoog baan ku furaynaa warka labaadna muxuu ahaa wadahadal baa noo socda aynu eegno war kale oo saddexaad oo si gaar ah saxaafadda uu siiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodada u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka ay yihiin kuwa si wanaagsan u socda wuxuuna yiri maalmo gudahood ama 2 maalmood waxa la gaari doonaa natiijo lagu ogaan doono heshiis in markaa dhinacyadu ay gaaraan Trump ayaa waxa uu sheegay dadka wararka fidiya in uu filayo 48 saac gudahood natiijo wanaagsan inay soo baxdo saddexdaas war saacada gudahood ayuu diibay madaxweynaha Mareykanka dhanka Iiraaniyiinta marka aynu eegno iyo mowqifkooda wararka ugu dambeeya arrintan iyo wax ay ka yiraahdeen warbaahinta Sabah News oo xiriir la leh ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ayaa waxay ka soo xigtay ilo wareedyo ku dhow taliska ciidamada Iran in faragelinta Mareykanka iyo hanjabaadaha military ee madaxweynaha Mareykanka ay sabab u yihiin dib u dhigista heshiis ay gaaraan Iran iyo Oman kuwaasi oo ka wada xaajoonaya arrinka marinka Hormuz sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ayaa waxa uu sheegay inta ay socdaan hanjabaadaha Mareykanka ee weerarka dhanka Iran in heshiisku dib u sii dhacayo isagoo xusay in Iran aysan gali doonin wax heshiis ah iyadoo ay dul hooganayso hanjabaad halkaas marka maxaa ka cad Iran iyo Oman inay isfahmeen laakiin Iiraaniyiintu waxa la sheegaa inay yihiin dad ku fiican xisaabta jarakaboodka ama jarakaboodada waxa leeyahay marka haddii heshiiskan Oman ay la gaaraan waxay diidan yihiin Trump inuu intuu guul sheegtay yiraahdo Mareykanka Hormuusna waa furan yahay aniga ku qasbay Iiraaniyiinta shalay talaadada ayay wax u qabtay Iran inay ku furto Mareykanka Hormuus warkiisa wala dhageystay dibnaha laga xirta hadda muxuu leeyahay 48 saac gudahood suurtagal waxa baa leeyahay inuu u dhaco heshiiska saxiixiisa ku dhawaaqistaankiisa toddobaadka dambe waa dhici karta in lagu dhawaaqo saacada gudahood ama ilaa iyo maanta ilaa iyo bari laakiin Iiraaniyiintu waxa leeyahay waxay ka cararayaan inay isku arkaan Trump inuu u yeerinayo go'aanka la xiriira Mareykanka Hormuus dhinaca kale waxa su'aal la iska weydiiyay madaxweynaha Mareykanka markuu leeyahay Mareykanka Hormuus wuu furmi doonaa عليه سو isagii laha maalmihii la soo dhaafay Mareykanka Hormuus waa furan yahay oo ciidamada badda ee Mareykanka ayaa gacanta ku haya taana waxay noqotay calaamad su'aal kale waa tahay warkaasna intaas dayno kaga gudubno marka waxaynu eegaynaa dhanka Israa'iil oo war uu ka soo yeerayo gaar ahaan Israa'iil oo sheegaysa inay saboor u hayn sida wax u socdaan telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa ka soo xigtay ilo wareed sheegaya in Israa'iil aysan si toos ah uga helin Washington xogta ku saabsan wadaxaajoodka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran sida wararku sheegayaan inta badan xogta Israa'iil ay hayso waxay ku kooban tahay waxa madaxweynaha Mareykanka telefishinada uu ka sheegayo telefishinka kanaal 12 ayaa sidoo kale waxa uu ka soo xigtay sarkaal sare oo Israa'iiliya oo sheegaya in Trump iyo la taliyaashiisu ay doonayaan in heshiis la gaaro Iran qiimo kasta ha ku kacdee isla markaasna Iran arrintaasi ay si fiican u ogtahay sarkaalka ayaa intaas ku daray in hadda wadada muuqata ay tahay midna ka diblomaasiyadda halkii laga sugayay xaaladdu inay noqoto mid military halkaas marka maxaa ka cad saddex qodob ayuu warkan sheegaya waa midda koowaad Israa'iil inaysan waxba ka ogeyn waxa socda qodobka labaad muhiimka muxuu yahay madaxweynaha Mareykanka iyo la taliyaashiis inay doonayaan heshiis in la gaaro Iran
qiimo kasta ha ku kacdo muxuu noqon karaa marka qiimo kasta maraykanku inuu yiraahdo go'aankaas baan qaadanay dagaalkana waa joojin Israa'iil iyo maraykanku isku xumaadaan macnaha qiimo kasta ha ugu kacdo dagaalkan iga soo gabagabeeyay ka taaganta madaxweynaha maraykanka walow ay dhici karto sida qobarada ay sheegayso xaalad military inay meesha ay iska marnayn waayo maraakiibta maraykanka ee diyaaradaha dagaalka xambaara waxay ku sugan yihiin badda Carabta iyo gacanka Cumaan waa meel aad ugu dhow Iiraan in ka yar 300 kilomitir ayaa la sheegayaa dhanka badda ah inay Iiraan u jiraan marka badhici kartaa si gaalma weerar in lagu qaado inkastoo Iiraaniyiintu leeyihiin wada xajood kasta oo socda iyo dadaal dhanka diblomaasiyadda oo socda waxaa ku lamaansan feejignaan iyo heegan ay ku jiraan ciidamada Iiraan waa sida warbaahinta Iiraan ay sheegayso wixii warar ah ee arrimahan ay ku soo kordha barnaamijka wararka maanta oo saacada kadib soo gali doona ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah idmo inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inuu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub Amerika Asia Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya hoos tagana bangiga caalamiga ah ee IBS haddaba sidee lacag loogu soo diri karaa eBesa ugu horeyn soo fur abka Ria Money Transfer dooro dalka Soomaaliya kadibna geli lacagta aad dirayso ka dooro halkan habka lacag diristaada oo ah mobile wallet sidoo kale dooro payment methodka aad rabto in lacagta aad dirayso ku bixiso kadib riix continue geli magaca qofka aad lacagta u dirayso dooro mobile walletka aad lacagta ku dirayso oo ah eBesa kadib geli lambarka qofka aad lacagta u dirayso adigoo marka hore dooranaya koodhka Soomaaliya oo ah +252 geli xogta dheeraadka ah ee qofka aad lacagta u dirayso sida xiriirka idinka dhaxeeya halka uu joogo iyo sababta aad lacagta ugu dirayso kadibna riix continue hadda waa dirtay lacagta isla markiiba ayay ugu dhacaysaa eBesihiisa qofkii aad u dirtay isagoo jooga gurigiisa ama goobtiisa shaqada eBesa goob kasta iyo goor kasta